xildhibaan adigoo fadhiya gacanta taag fariiso xeerosaadkii ku qabanayna fariiso ajandaa waan la ansixi fariista fariista horta fariista xildhibaanada aan isdhegaysanno xukuumadda waxay ku fashilantay inay qabato shaqadii laga rabay oo doorashooda waxaan rabnaa colka kalsooni kala noqoshada inaan u qaadno inta ogol u codaynaysa gacantaaga ha la soo tiriyo dejiya ha la dejiyo انت في بنك عنت تاجا دجيا انت كعامصي حكومة كالسولينا وعلى نقضي وعد علي مدحوينها جمهورية الفدرالية وإنه صادقة حكومة أوده غدا كدور شيء جالسيسو طبعا كان واحد هاي
xukuumadda xilka noqoshada eedo intaas lahayn inuu yiraahdo guddoonka xukuumadda cod u qaaday waa wax la yaabo xildhibaano kale ay gadameen doonto waana mahadsantihiin laakiin xildhibaan saab wasiir maxaad u doodi weyseen oo aragtidiina waxaad qabtaan maadaama uu guddoonku ogolaa maxaad hor istaagteen golaha hortooda waxaan ogaa doodda haddii la furnaan saana ku dhamaaleen halkan waxaa ku dhigan doorashooyinka xukuumadda dhacda kuma dhigin intaanu rabin marka waxaan annaga u doodaynay aanu doodana ahayd inuu warkiisa toos u yiraahdo oo alla ma hadiis waxaan ka filayno toos u yiri marka intaan ahayd marka annaga inaan qaldan ha ogaadaan sharciga hogaansanahay waxaan u doodaynay intaas ahayd tiiyunu yimid waa nasiib daro waxaan leeyahay waa ummadda Soomaaliyeed inay dib u noqoto ma rabno in hore loo socdo la rabaa insha Allah biidnillah kariim waxaan ka shaqeynaa dalkan doorashada oo aad lahayd si ummadda Soomaaliyeed isku kalsoonata 4 sano kastana waxaa ka dhaco dalkan 2000 ilaa hadda 4 sano kasta doorasho ka dhacdo doorasho dhacaysa biidnillah kariim xukuumaddu station ma ogolo xukuumadda horena wasaaraha u shahaadana waa ku celcelinaa xukuumadda ma ogolo xukuumadda xasan cali khayra ma ogolo station doorasho dhacaysa doorashaabkay ku dhacayso madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda qaranka iyo baarlamaanka si kala doorasho hal qof iyo hal cod ma dhici karto guddiga doorashooyinka halkan ay timid xalimiyaray waxayna tiri gudoomiyaha doorasho waxa u baahnaa waqtigana ma caddo 13 bil sheegatay iyo 9 bil wax cad male qalabka diyaar ma ahan marka taas mar inuu gudaha sii galo waa mahadsantihiin joogtada ah marka meesha la imaadeen waxa ku hoos qarnaa in xukuumadda mooshin lagama keenin procedure lama marsiinin mooshin lagama keenin waxa lama dhihin meesha buuq baa ka dhashay markuu buuq ka dhashayna gudoomiyaha baarlamaanka wuxuu iska dhahay ninka uu dhacay arrintan waa sharci darro dastuurka ma waafaqsana bariyahan oo dhan shuruucda lagu tumanayay golihii baarlamaankana wuxuu noqday Cabdilla Shideeye sababtoo ah xeerarkii labada aqal oo ansixiyeen aqalka sare uu ka tagay xalimadii markii hore maanta labada aqal hore maantay labada man hore maalin haddana ajenda aan ahayn uu ku hor qasoon yahay xukuumadda riitaan baa la keenay annaga sharci ayaan ilaalinaa meesha wax ka dhacayna sharci darre ahayd wax xukuumad ah oo la riday ma laha sababtoo waxaa loo cararaya waa extension duration 2 sano ayaa la raadinayaa waana wax la soo maleegay xildhibaanadii badankood iyagoo qaylinaya wuxuu dhahay way dhaceen uu dhacay mooshinna lama keenin codna lama qaadan lamana tirinin saas ayuu sharci darro ku yahay waana iska foodo waa mahadsantihiin waxaa maanta halkan ka dhacay waa dimuqraadiyad waa dowladnimadii iyo baarlamaankii oo micnihiisa soo noqday iyo ilaalintii sharciga xukuumaddii federaalka Soomaaliyeed ee kalsoonida siinay 2017 wasiiradii maxaa la yiraahdaa la dhisay boqolkiiba 60 ka badan la diray dib loo habeeyey shaqadoodina ka soo dhalaali waayey xukuumadda aanan sixinay meesha ma joogin haddee sharcigii hore loogu tuntay waxaa ilaahay mahadiisa maanta in la baraarugay lana xaqiijiyey in maaragtay xukuumaddii halkaas kalsoonidii lagala noqday gudoomiyaha baarlamaankana ku dhawaaqay haddee waxaan leenahay waa guul u soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed iyo baarlamaanka intaba haddee waxa loo riday xukuumadda way caddahay su'aal kama taagna kalsoonida waxa lagala noqday waxa weeye inay ka soo dhalaali weyday shaqadii loo igmaday xukuumadda ayaa ku shaqo leh inay ka shaqeyso sharciga maaragtay doorashooyinka inay dalka gaarsiiso xukuumadda looga fadhiyay haddii kalsoonidii maxaa la yiraahdaa hore loogu igmaday fulin weydayna kalsoonida lagala noqday marka waxaad ku talagalaysaan xukuumad cusub oo midnimo qaran la yiraahdo oo dib loo soo yagleelo dalkaana doorasho gaarsiiso waana mahadsantihiin